السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي. مغرب وناكسن maanta insha allah biidnillahi tacaala waxaan sameynayaa apple pie. inta waxaan ku haystaa tufaax 4 xabo tufaax ah, waa fiiqay waa jarjaray. intana waxaan ku haystaa qaado qarfo shiidan ah iyo qaado sokor ah. intana waxaan ku haystaa disilitirkaas iyo wax yar oo ah green hofre oo qamadiga mishaarida ah. intana waxaan ku haystaa intaas disilitir sokor ah iyo disilitir bur ah iyo 100 gram oo subag gaas ah. weelkaan aan ku sameynaa, weelkaan waxaan mariyay subag ayaan mariyay. soo marka ugu horeyso waxaan isku qasayaa insha allah qarfaha iyo qaadada sokorta ah. saana sameynayaa, bacdeen waxaan ku shubayaa inta saana leeyahay. wax badan ma u baahno, dib dhan ma lahan, soo leed waaye. haddana waxaan sameynayaa insha allah, waan isku darayaa intaa burka ku shubayaa. waxaan ku darayaa green hopre, waxaan ku darayaa sokorti, waxaan ku darayaa subagan. intaana isku qasayaa insha allah oo soo diyaarinayaa. waa kana saanan ka dhigay, saana la yeelayaa. wax dhib leh ma ahan, wuu sahlan yahay. marmarka qaarkood oo fiican tahay in jawiga la bedeshto. hornadu way ii kulushahay. ugu yaraan wuxuu ku jirayaa insha allah 20 daqiiqo ama 17 daqiiqo. waan kasoo saareynaa insha allah. waxaan sameysanayaa sooskii aan ku cuni lahaa apple pie-ga. soo labada xabo kuna haystaa iyo disilitirkaas sokorta ah iyo waxaa haystaa vanilya. aniga vaniliyada aad aan u jeclahay carafteeda, iyada un baan ku sameysanayaa. waxaan ku riday 2 xabo ukunta iyo sokortii disilitirkii sokorta ahaa.
intaana isku qasayaa بعدين waxaa ku dari doonaa insha Allah hal qaado oo vanilya ah la socodina